عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وان إذن وضا سلامي أصحابتا كحيران channel كيغان هلا عصول فضلا هدايت هاي مركي وقور ريسي عصوب وقت channel كيغان waxaan ka codsanayaa waliba si xishmad leh kaaga codsanayaa inaad subscribe saarto like tana aad saarto maxaa yeelay diinar gelin bay noo tahay insha Allah biidmillaahil kariim qof walbana waxaan u rajaynayaa inuu caafimaad qabo meesha uu joogana uu ku caafimaad qabo wax walba uu jecel yahay inuu Allah u fududeeyo biidmillaahi wa birahmatihi saa tamleedka fiidowga ku soo aragteen ama boorkan gadaasheeda ka muuqda waxaan rabaa arin ka taagan gobolka Sool oo Soomaaliya oo dhan ay wada og tahay arinkaas oo ah arin gobolka Sool ka taagan waanu ogsoonahay gobolka Sool waxa ka dhacay dilal aad iyo aad u fara badan ugu yaraan ay gaarayaan 83 qof ilaa hadda wixii dilayna looma hayo marka dadkani daawanaya waxaan rabaa inaan arin u baahiyo arin badan dukumeentiyo fara badan oo aan hayo arinka ku saabsan iyo cidda dhacdooyinka sameeysa iyo cidda ku lug leh inaan idin soo gudbiyay biidmillaah wa birahmatihi balse intaan arinka idin ku soo gudbin fiidowga waa arin aan muddo dheer baaray balse saddex su'aalood baan qabaa horta inaad iiga soo jawaabtaan oo Allah awood la suuro galiyo oo aad commentiga igu reebtaan su'aasha koowaad waxay tahay dilalka ka dhaca gobolka Sool maxay uga dhici waayeen gobolada kale ee Somaliland ka taliso sida Burco Boorama Berbera Hargeysa sababta dilalka noocaas uga dhici waayeen maxay tahay waa su'aasheeda koowaad su'aasha labaad aan weydiinayo cid walba uu soo gaaray kilibkan waxay tahay cid walba oo kilibka fiirsata ama uu soo gaaro su'aasha labaad aan weydiinayo waxay tahay maxay Somaliland xilqa qaadis ugu sameyn weyday markay falalkaas foosha xun gobolka Sool ka dhacayeen dadkii madaxda ka ahaa gobolka Sool ay ugu horeeyaan saddexdan in ay idin muuqda mid waa barasaabkii hore hadda waa la bedelay ina jeeniyare midna waa taliyihii guud ee ciidamada booliiska gooni oo waa la bedelay midna waa taliyaha nabad sugidda gobolka Sool isna waa la bedelay qowdan carab sababta ay nimankaas u bedeleen maxay tahay maadaama xilkoodii gudan waayeen sababta loo casili waayay oo bedelkoodii dad kale loo keeni waayay maxay tahay waa su'aasheeda labaad su'aasha saddexaad waxay tahay mar walba oo gooni loo soo bedelo Sool gobolka Sool loo soo bedelo maxay dilalkoodii meesha uga bilowdaan saddexda su'aalood haddaad iiga soo jawaabtaan runtii waxaan soo duubi doonaa video aan kaga hadli doono arrimo fara badan oo ku saabsan dilalka ka dhaca Somaliland iyo cidda ku lug leh qof walba waa orto waa dareemi kara dilalka Somaliland ka dhacay inay Somaliland ku lug leedahay waayo 83 qof ee la dilay ee ciddi shayna aan loo hayn kulli waxay u wada shaqeynayeen maamulka Somaliland sababta loo ugaarsanay dadka maamulka Somaliland u shaqeeya maxay tahay waayo dhulbaanta waa in istaqaana inta gobolka Sool ku noolna waa in istaqaana qofkii maanta qof dila qofka ugu horeeya haduu dhaafo qofka labaad ee uu dhaafo markuu ordayo ayaa sheegi lahaa oo oran lahaa in hebel buu ahaa oo waayo Sool waa in istaqaana hadda inaayihiis iska dahooyadii baa loo abtirin lahaa halka waxa inooga cad dilalkaas inay ka dambeeyaan Somaliland taasna ana idinka qancin doona markii aad ka soo jawaabtaan saddexdeeda su'aalood insha Allah biidmillaahil kariim saddexda su'aalood marka ka soo jawaabtaan arrimo fara badan ayaan idinka caawin doonaa mid kale waxaad ogaansoonataan dhalinyarada gobolka Sool ku nool Somaliland waxay ku kalistaa inay la shaqeyso haddii ay la shaqeyn weydana waxay ku xukuntaa xabsi bay geysaa ama way dishaa ama al-shabaab bay ku eedeysaa taasi ana igu dhacday waana taariikh waana idin ka sheekeyn doonaa waayo anigu markaan diiday inaan la shaqeeyo waxyaabo fara badan oo xun ayay igula dhaqmeen taana waa idin ka sheekeyn doonaa qaab ee damceen adaamar inay isku diraan laba beelood oo nabad kala dhex taalo oo dibtooda muddo fara badan soo jirtay oo hadda heshiiyay oo walaalo khayr oo baha khayr la isku yiraahdo ayay mar waxay damceen adaa laftirkooda inay dab ka dhex huriyaan laakiin saarikaas waa lagu fahmay fiidowga xiga hadduu Allah awood la suuro galiyo ayaa waxaan ku faahfaahin doonaa saddexda qodob aan idin weydiiyay hadduu Allah awood la suuro galiyo iyo waxyaabihii aan Somaliland kala kulmay markii aan dalka joogay waxyaabihii aan Somaliland anigu kala kulmay
كإسماعيل هان مركي أن جوجي قبل كصول بان كل يدي كحجين دونا وحيابها عد أو موجودنا وايد صهر ديجي دونا لكن سهل متبقى يقدر دارنا غير قبل كصول ما أنت وحال لقى حماده وح لقى دي وحا dad ciyaalkoodii taariikhdii in iskuulaadka loogu dhigo war waa haday iskuulaadka loogu dhigo inay maanta idin gumeystaan war dadkan idin gumeysanaya maanta ee dushaydi ka haysta ee maskaxdaydi ka haysta ma aysan ahayn dadka iyagoo qaaqaawan aad u tagteen ee aad maamul Soomaaliland la yiraahdo u sameyseen oo aad maamul u jirteen war soo iyagii maaha waxaan quustay oo aan aad u xumaaday marka arkay dad qaxooti iyagoo raafaya ورني قحوتية سود الوجيسانية والقحوتي والله صوّر مري والعيال بوا وقتها نقحوتية بريسكي سبع سنة يا ما هاليلين واحد له ثم والله ينوصل هاليلين واحد له سبب تعيور الريان نوح كلامها هذا الله حيسوق جاري أبو مقالة يسوق جاري ما كانت تفرق بدون ورستي عضت كانوا يدنيجيسين دونا إن شاء الله أو ورستي سوقي تتكلم لقى قاضي إن هبرت على اللجوري شيء قيب كم إذا قيبت كلنا يساق لجوري شندور قيبه هذا كلام ودول بهاتهم مساسات رالي كتين مشلمات خير بايد والي ورميش ككعة وحنا أركي الله المستعان وزير كسر كذا قبل خصال وما عنده ويد لها كنت خطبتي ساعد بنوتش على هذا الحمد لله فلله الحمد هذا الذي سوى حكم إذا سومال لنا يقول قاونا نجا ونمي ومعمل كانوا بس هذا معمول بس ما يسالنا هذا معمول بس ما يسالنا من بعد كده بكعي ولا إذا فيصل علي ورابع كل أنو عافمات قبل نكاسيلا معها ضدك والله ما كنت رياه وحي الرجال أول يقول بيه بتفران بوحي الدنيا أنا حسبي فرطان وردمير كينا حبوت شرا وردمير كينا حبوت شرا هذا الكواب بديي إن شاء الله صدق هذا السؤال ده يعني دويدينا وحن رجالي يعني أكون متجي يقول جوابي دوت أنا ردوا الله ودنا إدمه كذب أيام وحي وربحين أنا هيئ اللي هو ذاك الدورة يوحي عليك الصولة اللي بعتها الصول وحي كتم بيا قف عقلي لو قرنا يا وحي